بسم الله الرحمن الرحيم وربنا ودور حرام وركينني waxaa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Gille oo maanta isagu hormuud ka ahaa ashriinaha caalamiga ee dhalinyarada Afrikanka waxaana fadhigaas uu ka dhacay dhinaca guriga ummadda waxaa gees kale yasna socda shirka saddexaad ee la isugu diyaarinayo foorumka u horeeya ee maalgashadayaasha waxaana uu yahay kaasi mid maanta shirkiisa isugu yimaadeen mas'uuliyiin kala duwan waxaa markan madaxweynaha reer Jabuuti waqtiyada xagaaga loo gudbay intooda badan ay u xamaan qaadanayaan sidii ay u xagaadixi lahaayeen iyadoo dalkan Ingiriiskana sida Itoobiya Soomaaliya iyo Yemen ay waqtiyada kulaylaha iyagu ay kaga soo nastaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عروس ناكسن مريم يمضيال كسو دواد ورشي دالكو كلي نغسو غاري عاوة وركي او دنام مدحوينها جمهورية مدن إسماعيل عمر جيلي أيام مات وحا وفرمودا كاها أشرينها عالمية دليرة أفريكانكا او كفر ميدين عابريكا ومدى وحناها طبعا قادية فدياسية أما شرينها سي وزارة دارنتا يعيارا سبورتيا إيا ولها قرن دليرة جبوتي وحنا وشرينها سي جديد سيتهي إن دليرة أفريكانكا لدرنسيو مهودا يبو أي كليهين لنا عطابقاقا نبضيتا جيسكا أفريكا يودا قارد أفريكا جيدهان وحنا هالكاسي مدحوينها جمهورية مدن إسماعيل عمر جيلي إسانه هرموت لها ولدا جينا يشرينها سي أساكا كفر ما يجرق ومدى هالكاسي أو أي هرطة فناني فربضني يارو يهدا يدقن كي يهسك لبقصة بندقين وحوينها جمهورية مدن إسماعيل عمر جيلي وحا قرطة كسو دوينية وزير وزراء جمهورية هدوليتا محمد هدوليتا وزير كدوليتا وعيارا سبورتي حسن فارح مجيل يوم بدونيها أوركا قرنية دوليتا جبوتي حاسنا برخط وحانا مناسبة سي فريتان كاشلينا سي كبير غادنا يويا وقنا قرأ حكومة يوم بدونيها قولها أماها أوركا دوليرا إدنا عن نبضي أفريكا يوسف الديابي يوم شخصيات فربضان ويوم سويت رغو يوم ميليتري علماء الدين تاسو فدقا سي شلينها عدنا عدن يرضى أفريكا حقا عالمي يهم مركاسي لوجود هذا الجاية إنها يرمو فربنا كاسي لوجود بندقو كاسي شركاسي يهم تبدأ الدنيا جبوت أما بس سعودنا إذا أصبح إلى باتك بشن جوا يلا موضوع اللقاتي ورينا وياهي بن يرضى أفريقيا كا نبض وارتا يد مركاسي كشغاسة حق غرب أفريقيا waxaa hadaba furitaanka shirkaasi khudbada ka jeedisay gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Jabuuti macdada dhalinyarada ee Jabuuti Marwo Xasan Barkad Daawud iyadoo ah gudoomiyaha golaha qaran ee dhalinyarada Jabuuti oo hadda u mahadcelisay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Gille oo isagu markaasi diyaar ka ah arrimo fara badan in uu isagu wax kala qabto dhalinyarada Jabuuti taasi oo isagu madaxweynuhu uu gacan uga geystay dadaal loo galay sidii nabad waarta iyada looga meel bari lahaa gaar ahaan arrimo fara badan oo nabadda ku saleysan loo heli lahaa taasi oo xasna barkad iyadoo ay sheegtay in Jabuuti markan iyadoo soo diyaarinayso xuska sanadkiisa jamaada ka soo wareegaya nimadeeda taasi oo dhalinyarada Jabuutina ayagu markaas maanta fursad u haysato xuskaasi in ay ka qayb qaadato iyadoo doorkeeda ka galaysa waxaana shirweynaha si dhinaca nabadda waarta ee Afrika uu yahay mid oo ujeedadiisa koowaad iyo hindisihiisa xagga horumarinta iyo qabanqaabad waxay tahay mid ka soo yeedhay ururka dhalinyarada Afrika oo iyagu markaas Afrika la doonayo inay hawsheeda ay dhinac ka galaan taasi oo sheegtay inay iyadu halkan ay ka xusayso joogitaanka Monsieur Yusuf Diaby waxaana ay tilmaamtay in ay dalal fara badan ay markaasi ka mid yihiin ururkaasi sida Côte d'Ivoire, Masar, Senegal, Soomaaliya, Chad, Togo oo iyagu markaasi ka qayb qaadanaya shirweynaha sidoo meedha markaasi uu yimid waxaan soo dhaweynayaa ayaa tiri guud ahaanba dadkaasi uu Jabuuti u yimid ay qayb qaataan shirweynahaasi iyadoo oo afar markaasi ayuu saddex afar waddanka ku soo dhaweysay oo tiri arqida soo dhawaada iyo ahla wasaaran intaba waxaana ay tilmaantay in uu yahay shirweynahan mid la doonayo in si wanaagsan uu u dhaco maalmaha uu socdo inkastoo haddana kuleelka faraha badan ee Jabuuti ka jira markaas aad u qaadanaysaan waxaana muuqata ay tiri in arrimahaas oo dhan ay yihiin kuwo iyagu qaybka sidii markaas dhalinyarada Afrika iyagoo uga qayb qaadan lahaayeen horumarka qaaradooda oo nabad waarta ay uga dhigin lahaayeen waxaana
taasi ay tahay mid sidoo kale oo isna uu tilmaamay gudoomiyaha ururka dhalinyarta dhinaca nabadda ee qaaradda Afrika ee IGPA loo yaqaano Mr. Yusuf Diaby oo isagoo tilmaamay in jamhuuriyadda Djibouti ay leedahay tusaale wanaagsan ay tustay dalalka Afrikanka oo in leedahay ay tahay ee guddiyaanka dalalka Afrikanku ay ka tilmaan qaateen Djibouti taasi oo dhalinyarada iyaga lagu tallaabsanayo in la dareensiiyo in ayagu muhiim ama kaalin muhiim ay kaga jiraan dagaalka joogtada ee kala duwan aan lahayn ee loogu talagalay in Afrika ay kaga baxdo dagaalada iyo weliba arrimaha kala duwan ee caloolxumada ah waxaana taasi uu ku sheegay in laga bixi karayo oo kaliya dhalinyarta oo iyagu iskaashada gudiyaanka qaaraddan Afrika oo iyagu markaasi ku tallaabsada howlgal aad u ballaaran oo ku aadan xasilinta qaaradda Afrika nabad waartana in markaasi laga dhaliyo waxaa halkaasi haddaba isna ka qayb qaadanayay shirkaasi ama shirweynahaasi ku aadan dhinaca ururka dhalinyarada Afrika ama shirweynahaasi caalamiga ee dhalinyarada Afrikanka wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha isboortiga mudane Xasan Faarax Mudeel oo isaguna halkaa khudbad uu ka jeediyay waxa uu ku sheegay in Djibouti sharaf weyn ay u tahay in ay hirgeliso oo ay martigeliso shirkan u horeeya ee dhalinyarada Afrikanka iyaga loo qabanayo ee kuna aadan arrin isagu markaasi muqaddasa oo muhiima oo ah nabad waarta oo qaaradda Afrika laga dhaliyo waxaa khudbadaasi wasiirka loo tarjumaya Ismaaciil Umar Cige jamhuuriyadda Djibouti waxa ay ku faraxsan tahay isla markaasina ay soo dhaweynaysaa martigelinta shirkani ugu horeeyay ee caalamiga ee dhalinta Afrika waxaana ay ka dhigan tahay in jamhuuriyadda Djibouti sidaasi ay ku fahamtay dambaalkii ka soo baxay madaxda wadamada Afrikanka ee ka soo baxay shirkii madaxdaasi ay ku yeesheen Banjul ee bishii July sanadkii 2005 ama heshiiskii Afrika ee dhinaca dhalinta kaasi oo hal lagu rabay in lagu helo xal loogu helo dhibaatooyinka haysta dhalinta Afrika waxaana ay taasi tahay mid iyada waxa ka go'an ummadda reer Djibouti iyo ummadda Afrikaba waxaana taasi sidoo kale ay tahay in dhalinta la siiyo codkooda si ay uga qayb qaataan horumarka waana qaybo ka mid ah tallaabooyinka xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Cige isaga oo hirgeliyay oo isagu asaasay dhismaha kaabooyin dhinaca isboortiga iyo dhinaca horumarinta ee dhalinta oo la mid ah kuwa caalamka sidaasi darteedna dhalinta reer Djibouti waxa ay fursad u haystaan ka qaybgalka go'aanadaasi iyagoo ku aadan waana midda golaha qaran ee dhalinta ay ku qabanqaabiyeen shirweynahani dhalinta ee nabadda ee caalamiga avec l'appui du gouvernement. La première conférence interne madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geele oo isagu hormuud ka ahaa shirweynahaasi ku saabsan dhalinyarada Afrikanka ayaa waxa uu khudbad halkaasi isna uu ka jeediyay uu ku sheegay furitaankii shirweynaha maanta in uu isagu si aad u hambaliyeynayo hamiga ka soo yeeray dhalinyarada Afrika ee ku aadan kobcinta qaaradda Afrika nabadeeda Ismaaciil Umar Cige oo tarjumo khudbada madaxweynaha waxaan jeclahay marka hore in aan inii caddeeyo farxadda weyn ee aad nagu dhaliseen markii aad dalkanaga u doorateen martigelinta shirweynaha nabadda kaasi oo ah mid sharaf noole dhammaantiin waxaan idiin rajaynaynaa soo dhoweyn wanaagsan aniga oo inii soo tabinaya mahadcelinta bulshada reer Djibouti dhammaanteed oo ku niyadsan in ay nagu soo dhoweyso dhulkeyga iniina fidiso martisooriyiinta wacan ee ay dhaqanka u leedahay annaga oo reer Djibouti ahaan isu diyaarinayna xuska 30-guurada qarankeena ee 27-ka bisha kulankan nabadda ee dhalinta qaaraddu waxa ay noo tahay mid ahamiyad badan noole waxaana aan dareemaynaa oo aan dareensannahay in kulankani uu yahay mid laga mahadceliyo kaasoo qaranka dhammaantii uu yahay mid isagu lagu kor qaadayo nabadda isla markaasina lagu sugayo sugnaynta tan iyo markii aanu gobonimadeena hantimay waxaana taasi ay tahay sharaf aanan marnaba qarin karayn oo aan ku faano marweyn iyo mudanayaal nabaddu waa waajib aan
la dhaafi karin waana mid dalinta Afrika ay ku meelmarin doonto hanaankeeda iyo rajada iyo weliba horumarkeeda laakiin waxa nasiib darro ah in waajibkaasi uusan ka suurtagelin qaaradda iyadoo marar badan nabadda ay fogaatay oo ay colaadu bedeshay sidaasi darteedna ay qaaraddu gashay dhib aan meel looga baxa lahayn oo iyadu burbur iyo dagaal sababtay sida afgembi colaado qabiil iyo wixii la mid ah nasiib darrana waxa ay markaasi ku habsatay oo ay waxatay dhalintaasi oo mustaqbalkoodii uu ku burburay waxaana in lagu qasab ah waxaana qasab ku noqotay dhalintaasi qaxootinimo iyo camal la-aan nabad la-aantaasi awgeed waxaana ku burburay noloshiini iyo wax soo saarkiinii kuwaasoo ay bedeshay niyadjab iduu ku dhacday waa taas haddaba nolosha nabad la-aanta ka dhalata ee gaar ahaan dhalinta Afrika saamaysa haddii haddaba dhalintu ay hesho nabadda waxa ay ka dhigan tahay in aanay wax badan waayin ma awoodin iyagoo oo halkaasi ku bedeli kara niyadjabkii ku dhacay himiladooda iyo bedilaada noloshooda dhalinta Afrika in ay horkacaan nabadda waa mid iyadu lama huraan ah oo qaaladdu ay ku helayso horumar iyo kaalinta dhalintu ay ka galayso dhinaca horumarka nabad lagu waaro oo ka dhalata ama ay qaaradda Afrika hesho ayaa waxa ay ku xiran tahay horumarka dhalinta iyo weliba qaaradda guud ahaanteeda waana midda lama huraanka ah in rabitaankiina iyo jamhuuriyadda Jabuuti oo uu matalayo dalajirahooda howlaha joogtada ah ee dhinaca qaramada midoobay ee magaalada Geneva mudane Siyaad Ducaale ayaa waxaa 19 bishan Juun Jabuuti loo magacaabay inay noqoto ama ay qabato jagada gudoomiye ku-xigeenka golaha xuquuqda insaanka waxaana hawshaasi iyadoo ay tahay mid jamhuuriyadda Jabuuti loo xil saaray waxaana taas ay ku soo beegantay xuska sanad guurihii labaad ee kasoo wareegay markii la aasaasay golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay taasi oo iyadu ah mid bedelay howlihii hore ee hay'adaasi ay qabanaysay oo macalka markaasi sidanaysay waxaana hawshaasi iyadoo ay tahay mid markaas magaceeda la bedelay markana uu isagu gudoomiye uu ka yahay darajadaha dowladda Romania Monsieur Domenico Costea oo isagu hay'adaasi xukuma waxaa golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay hawsheedu ay tahay in ay daryeesho oo ay kobciso tixgelinta guud ahaaneed ee xuquuqda insaanka iyo shakhsi ahaaneed iyada oo la dhowrayo beriyahaanba xorriyaadka asaasiga ah oo cid walba markaasi loo eegayo iyadoo aan cidna laga reebaynin ama dadka aan la kala fuquuqaynin oo cidna aan gees loo soocaynin taasi oo si xaq ah oo markaasi iyadu sinaana dadka xaqooda loogu dhowrayo haddaba jamhuuriyadda Jabuuti iyadu ka mid noqota golahaasi qaramada midoobay ee dhinaca xuquuqda insaanka ayaa waxay tahay mid ay ku haatay doorashooyin iyo codbixin loo qaaday oo toosa oo qof walba markaasi ama dhanjiro walba codkiisa isagu uu ku riday saxaaradda iyada oo markaas lagu hanaayo cod dhan ilaa 99 cod si golaha guud ee qaramada midoobay looga heli karo taageeradaasi lagu noqonayo xubin ka mid ah hay'adaasi dhinaca xuquuqda insaanka taasi oo Jabuuti beriyaanteedba
iyadoo ay hanatay codadkaasi waxaana howlahaasi ku aadan dhinaca sugidda xuquuqal insaanka iyo tirtirintooda ay yihiin kuwa ay weheliyaan xuquuqal insaanka oo iyadu markaasi xorriyad aasaasiya dadka loo eegayo iyada oo wadan walba uu isagu taa dhowrayo si uu uga mid noqdo hay-adaasi qaramada midoobay iyadoo ka mid ah waxaa haddaba jamhuuriyadda jabuuti oo iyadoo xubin ka noqota golahaasi qaramada midoobay ee dhinaca xuquuqal insaanka iyadoo ay tahay mid aanan jabuuti loogu deeqin ama aana sidaa uu loo siiyey balse jabuuti ay tartar u gashay oo iyada codadkii looga baahnaa ay ku heshay taasi oo si ballaarana ay aqlabiyadii jamhuuriyadda jabuuti ay uga heshay golahaasi guud ee qaramada midoobay si ay iyadoo gudoomiye ku-xigeenka golahaasi ay u noqoto oo golaha guud taageeradiisa uu siiyey ururka alliance club ee jabuuti ayaa waxa uu saaka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle uu gaarsiiyey oo gacanta ka riday buug isagoo ka waramaya taariikhkaasi oo loogu magac daray saciid cali kubeesh iyo weliba hawlihii kala duwanaa ee dhinaca howlaha shirkadaha taasi oo madaxweynuhu saaka uu hantiyey ama uu gudoomada buuggaasi waxaa haddaba buuggaasi nuuciisa u horeeya la siiyey oo gacanta laga riday madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil margeele waxaana gacanta kaga riday saaka magda saciid cali kubeesh oo iyadu ah gabadha u dhalay saciid cali kubeesh waxaana halkaas u joogay mas-uuliyiinta ururka alliance club ee jabuuti taasi oo uu sidoo kale goobjoog ka ahaa gudoomiyaha cusub ee ururkaasi alliance club burhaan maxamed cali waxaana buuggaasi isagu yahay mid ay qoreen labo taariikhiyaan oo kala ah colet dubois iyo dominique jeune waxaana halkaasi waraysi ay nagu siisay magda saciid cali kubeesh iyadu ay sheegtay in buuggaasi isagu yahay mid ka waramaya taariikhda aabaheed oo bariba gaar ahaana buuggaasi taariikhda jabuuti ay qayb weyn kaga jirto iyada oo taasina buugga uu ku tilmaamayo guud ahaana firfircoonigii iyo hanaankii wanaagsanaa ay aabaheeda u galo dhinaca shaqooyinka xagga shirkadaha iyo rabitaankiisii ahaa in uu si aada u kor ugu qaado sawirka jamhuuriyadda jabuuti buuggaasi ayaa waxaa soo bixitaankiisu kusoo beegmay sadanguuraha jamhuuriyadda jabuuti taasi oo ay sheegtay magda saciid cali kubeesh in buuggaasi yahay mid dhaxal gala shirkii saddexaad ee isagu qaybta ka noqda guddiga isu diyaarinaya habeynta iyo weliba qabanqaabinta forumka u horeeya ee dadka maalgashatada ayaa isagu saaka ka bilaabmay ama isagu ka dhacay buugta hay-adda FAO ay ku leedahay jabuuti waxaana shirkaasi uu yahay mid isagu gobol xaaro oo arrimo kala duwan lagu diyaarinayo waxaa shirkaasi siduu yahay mid lagu diyaarinayo ismar ahaantaasi lagu qabanqaabinayo forumka u horeeya dhinaca maalgashatada ee waaxda sektarka ribalka loo yaqaano taasi oo ku beegan Oktoobar 2007 waxaana gudoomiyada shirkaasi xogeyaha guud ee wasaaradda beerqodaalka iyo dhinaca taranka xoolaha jaamac maxamuud waxaana ka qayb qaatay wakiilo ka socda FAO oo jabuuti weyn markaasi degan waxaa sidoo kale joogay igaab iyo mas-uulka cali xariibi iyo weliba wakiilo ka socda dhinaca waaxda gaarka loo leeyahay cali xariibi ayaa halkaasi hadal ka jeeday waxaa ku sheegay in hawshan ay tahay mid si wanaagsan u socota gees kale waxaa hadal halkaasi ka jeeday mudane jaamac maxamuud waxna uu yidhi waxa ay tallaabadiinan iyo meelmarinta go-aanadaasi ay yihiin kuwa ka qayb qaadanaya sidii loo meelmarin lahaa go-aanada xukuumadda iyo kan madaxweynaha ee ku aadan in la dhiirigeliyo maalgashiga midda labaadna waxaa idinka dhigaysaa kuwo ku gala taariikhda in aad tihiin kuwii ugu horreeyay ee ka qayb galay horumarinta maalgashiga sidoo kale hirgelinta iyo meelmarinta fadhigani ayaa waxa ay ku xidhan tahay tayada iyo heerka diyaarinteeda kaasi oo aad ka qaadanaysiin tallaabo qayb wacan ama kaalin wacan oo iyadu noqonaysa midda lagu horumarinayo go-aanka dhinaca horumarinta ee maalgashiga dhinaca kalluumaysiga markan haddii aynu soo qaadano waraysi uu siiyey agaasimaha guud ee dhinaca marsada kalluumaysiga musuubiisya ayaa waxa uu sheegay inuu si aada ugu mahadcelinayo wasaaradda beerqodaalka iyo waaxda xagga portugeeshka loo yaqaano oo iyagu taageero iyo gacansiin xoog leh mar walba la garab jooga howlaha kala duwan ee dhinaca marsada kalluumaysiga lagu yaqaano taasi oo hadda uu sheegay inay ku tira jiraan in ay sii ballaariyaan oo ay badiyaan shirkadaha dhinaca
kalluumaysi dhaqameedka iyaga lagu yaqaano si ay u noqdaan sharikado iyagu markaasi ganacsiga ka iibsada ama iibgeliya wixii soo saara ee xagga badda ay kala soo baxaan ee ganacsi ee markaasi kalluumaysi dhaqameedka iyagu ay kula soo baxaan waxaa waraysigaasi mar kale inoo turjumaya ismaaciil cumar cige haatan aynu leenahay kalluumaysato iyagu u baahan tababar in la siiyo si ay iyagu u hanan karaan aqoonta kala duwan ee dhinaca kalluumaysiga iyo sidii aan u sii lahayn qalab iyagu ku aadan qalabka dhinaca kalluumaysiga waxaana sidaasi darteeda dhowaantana soo booqday mas-uuliyiin iyagu ka socda dhinaca dubay kuwaasi oo iyagu xiiseynaya in ay maalgeliyaan dhinaca kalluumaysiga ee Djibouti ee gaar ahaan Boordabeeshka waxa kale oo aan ku tali jirnaa in aan dhisno warshad cusub iyo weliba laboratoire amba qayb shaybaarka qaabilsan oo lagu horumarin doono dhinaca dhoofinta dhinaca dibadda ee kalluunka sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay la taliye mudane fahmi oo isagu sheegay in dhinaciisa uu ka qayb qaadan doono dhinaca horumarinta ee kalluumaysiga isagoo sheegay in midaasina ay u hayaan mas-uuliyiintu dakhli fara badan oo ay ka helayaan dhinaca sanduuqyada kala duwan ee caalamka sida sanduuqa horumarinta ee wadamada carabta kaasi oo xiriir wacan aynu la leenahay islamarkaasina isagu taageero dhinacaasi naga siiya tan iyo markii aynu gobonimada hantinay waxaana uu gaar ahaan sheegay dhinaca sanduuqa horumarinta ee sacuudiga iyo weliba dhinaca sanduuqa horumarineed ee kuwait iyo weliba sanaabiicda kale ee wadamada carabta ee dhinaca horumarka dhaqaalaha iyo bulshada waana qayb looga baahan yahay in lagu horumariyo kalluumaysiga wararka ku saabsan dhinaca kulaylaha iyo waqtiyadan xagaaga la soo gaaray iyo dadka iyagu xagaabaxaya sanad walba marka la soo gaaro waqtiyada kulaylaha ayaa waxaa qoysas fara badan oo reer Djibouti iyagu ay u jeestaan dhinaca wadamada aynu deriska nahay sida Ethiopia Soomaaliya iyo Yemen oo dadku markaasi ay ku soo nastaan waqtiyada xagaaga waxaa haddaba dadkaasi hadda iyagu ay araabtooda iyo xamaantooda u guranayaan si ay u xagaabaxaan iyagoo horta waraaqaha ka qaata dhinaca xarunta booliiska oo waraaqaha passporada iyo lasbasada ay ka qaataan waxaana taasi kadib marka ay dadku buuxiyaan ay u gudbaan in ay u sii jeestaan dhinaca dalalka iyagu ay tegayaan ama ay xagaabaxayaan iyadoo dadku ay inta badan ayagu sii raacaan basaska gaar ahaan kuwa xagga Ethiopia iyagu u jeeda oo caawa aynu soo qaadan doono waxaa dadkaasi iyagu inta badan ay horay saacada hore ay tegaan goobta lagu ballansan yahay ee baabuurta iyagu u baxa dhinaca caasimada gaar ahaan Ethiopia u sii jeeda iyagu ay ka baxaan taasi oo basaskaasi ay yihiin kuwo heer degmahaanada shaqeeyo sandikada heerka degmo iyadoo ay maamusho waxaana dadkaasi intooda badan ay yihiin kuwo ay weeyaan ubadkooda oo iyagu waqtiyadan dugsiyada marka ka baxaan iyagu ku soo nasta dhinaca dalalka naacuudooda ay ka qabiilahay Djibouti dadkaasi oo iyagu markaasi taga dhinaca xarunta Al-Sabiix gaari dhaafan Galiile oo halkaas markaas dadkaasi ay uga sii gudbaan dhinaca dalka Ethiopia qiimaha lagu raaca basaskaasi ayaa waxaa yihiin kuwo iyagu aan isbedelin sanadkan oo ah 2500 qofkiiba oo ay ku tagi karaan dhinaca dalka Ethiopia dadkaasi ayaa waxaa marka ay tagaan dhinaca xarumaha furmaha iyagu ay tusaan booliska ama qaybta booliska baafka loo yaqaano ee qaabilsan dhinaca kala gudubka dadka ay halkaasi ku soo bandhigaan waraaqdooda oo markaas u dhan intooda badan waxaana kadib baabuurku u sii jeestaa waa basaskaasi aynu arkayna xagga Ethiopia oo dadku ay halkaas uga baxaan waxaan ka bedelo oo cusub ma jiro waqtiyada soo socda inaan xasiliyo shirkaddan doonin baabuurta ka waaweyn ka waxqaadin tayooduna ka wanaagsan inaan rabnaa soo dejin ma dhacdo dadka reer Djibouti in baabuurtina ay yaradaan oo ay wadaan baabuur masoo leegin ma dhici karto waxaan mas-uulka ahay 7 baabuur oo diyaar u ah dadkaas inay atumamaan ay qaadaan waqti kasta 10 qof haddii la qoro bilow 10 qof ay diiwaangeliyaan 10 qof la soo qaado waa la xagaa bixin waxa uu kaasi ahaa gudoomiyaha ururka ama sandikada ahaa basaska heerka degmada Cali Sabiix Xuseen Axmed oo u waranayay Xuseen Cumar
wararka ku saabsan ama ay habeenkasi ku soo qaybano ee qaybta ka ah dhinaca soddona gudaha dalkeena waxaa caawa aan u soo jeedinaynaa bal munaasabadii shalay ka dhacday dhinaca magaalada Cali Sabiix ee qodobka kaga jira madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Margeele xarunta dhinaca tababarka ee xagga ciyaaraha fudud ee heerka sare ah waxaana warkaasi uu koorgalay oo la socday Yaasiin Ridash kadib markii madaxweynaha dalka mudane Ismaaciil Cumar Gele uu qodobka ka jiro xarunta tababarka ciyaaraha magaalada Cali Sabiix ee lagu magacdalay Qarre madaxweynaha dalka uu helinayo wasiirka dhalinta ee isboortiga Xasan Faarax Migel iyo xubnaha xukuumadda iyagoo ka qayb qaatay munaasabadaasiba waxaa dabadoodu ay booqdeen jimnaaska ku yaala xaruntaasi waxaana ay ka qayb qaateen oo daawadeen ciyaar xagga handballka oo dhex martay gabdhaha ciyaar xagga basketballka oo sidoo kale dhex martay wiilasha iyagoo ku nool magaalada Cali Sabiix xaruntani tababarka magaalada Cali Sabiix waxay ku fadhidaa goob ballaaran waxaana laga dhisay qolka maamulka jimnaaska tibsiga iyo weliba wadada lagu ordo xagga ordada fudud ee loo yaqaano piste atletism talagalay musculation-ga oo dhawaan la dhigi doono qalab casriya xaruntani tababarka magaalada Cali Sabiix waxaa sidoo kale dhawaan laga dhisi doonaa qolka xagga hurdada iyo weliba garoon xagga tenniska iyo weliba goob dabaasha piscinka loo yaqaano maadaama ay lahayn gobolka Cali Sabiix goob dabaala madaxweynaha dalku waxa ugu ballan qaaday in garoonkaasi laga dhiso goobta lagu dabaasho loo yaqaano piscinka xaruntani tababarka magaalada Cali Sabiix waxay qayb ka tahay horumarka isboortiga qaran isla wararka la xiriira dhinaca maamuuska soddon guuraha wadankeena dhinaca ciyaaraha ayuu markan u soo leexanaynaa gaar ahaan xagga kubadda cagta waxaana ciyaaro laba ah ay dhex mareen laba kooxood iyagoo ka kala socda dhinaca xaafadda lixaad iyo xaafadda toddobaad iyagoo dhinaca Pikabusna ay ciyaarahaasi ay ka dhacayeen waxaana halkaasi ciyaaraha qabanqaabisay wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha isboortiga waxaana isagu hormuud ka ahaa wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha isboortiga madax Xasan Faarax Migel waxaana ciyaartaasi u horeysay gabagabada ee tartanka kubadda cagta ee xaafadaha kala duwan u dhacaysay iyadoo ay tahay mid dhex martay kooxda Kartesiis iyo Kartesen iyo markaasi dhinaca kalena ay isaga yimaadeen kooxda Pikabus waxaana halkaasi ciyaarta u horeysay ee gabagabada ama finaalka ku guuleysatay kooxda Kartesiis oo ka baysay xaafadda toddobaad kuna guuleysatay 2 gool iyo 1 waxaana ciyaarahaasi iyagu ay yihiin kuwo ay ka qayb qaateen mas'uuliyiin kala duwan oo ka socda dhinaca wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha isboortiga daawadayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabaynay wixii dalka iyo adduunyaha inaga soo gaaray intaan hadda dambe hadduu eedeedno saacadiina caadiga ahayd aynu isu iman doono meel walba joogtaan oo aad warkani ka daawanaysaan xagga telefishinka qaranka internetka waxaan gebi ahaantii maan kaga tegaynaa nabadgelyo iyo ammaan